daawadayaal ku soo dhawaada wararkii habeennimo ee janalka anfac media qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay waddo qorshe looga maarmi doono ciidamada amisom guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed oo sheegay in uu dhisayo maamulka madax bannaan hirshabeelle iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland oo howlgal ka bilaabaya goobihii al-shabaab ay hore ula wareegtay qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan warkeenna habeennimo. wararka naga soo gaaraya soomaaliya ayaa sheegaya in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay wado qorshe ay uga maarmayso ciidamada amisom islamarkaasina ay ka faa'iidaysanayso fursad ciidan. awoodda ciidan ee ugu weyn ee hadda soomaaliya ka jirta waa ciidanka midooda afrika ee ku howlgala magaca amisom kuwaasi oo taageero iyo dhaqaalo tiro badanba ka hela qaramada midoobay. marar badan oo waqtiga mandateka ay soomaaliya kaga howlgalaan ciidanka amisom la kordhiyey ayaa haddana waxaa qorshaysan in mar uun ay ka baxaan soomaaliya mas-uuliyadda amni ee dalka ay ku wareejinayaan ciidanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya. dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegtay in ay ka maarmi doonto ciidanka amisom ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya kuwaasi oo ciidanka dowladda federaalka ah ka gacan siiya la dagaalanka ururka al-shabaab ee ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe ayaa sheegay in ay ka maarmi doonaan garabka ay ka helaan ciidanka amisom ee howlgalka nabad ilaalinta ka wada soomaaliya. isaga oo ka hadlayay tababar magaalada baydhabo loogu furay ciidan ka tirsan dowladda soomaaliya ayuu wasiir amar dambe u sheegay ciidanka in ay dadaalaan si ay qayb uga noqdaan ciidanka la doonayo in ay bedelaan ciidanka amisom ee howlgalka ka wada soomaaliya. haddaba suurtagal ma tahay in xilligan la joogo ciidanka soomaaliya la wareegaan amniga guud ee dalka? cabdirashiid warsame oo ku xeel dheer arrimaha amniga kuna sugan magaalada caasimadda ah ee muqdisho oo arrintaasi wax laga weydiiyey ayaa sheegay in aysan suurtagal noqon karin in xilligan lagu jiro ciidamada soomaaliya ay ku fillaan karaan amniga dalka soomaaliya haddii aysan jirin cid ka kabaysa dhinacyada saadka dhaqaalaha iyo baahiyaha guud ee ciidanku uu leeyahay iyo haddii sidoo kale la helayo in tababaro iyo qalab wanaagsan ciidanka la siiyo. balse haddii intaasi aysan jirin aysan suurtagal noqon karin in ciidamada soomaaliya ay awood ku hanan karaan guud ahaanba dhulka soomaaliya. wararka aan ka helayna gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in guddoomiyihii gobolka hiiraan ee shalay xilka laga qaaday uu ku dhawaaqay maamul ka madax bannaan maamulka hirshabeelle ee ka arrimiya goboladaasi. ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay saxaafadda u xaqiijiyeen in ciidamo daacad u ah guddoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar ay la wareegeen qaybo ka mid ah kastanada canshuurta uu maamulka gobolka hiiraan ka qaado. kastanada ay ciidamada guddoomiye dabageed ay la wareegeen ayaa waxaa ka mid ah kastankii kalabaydhe oo ahaa kan ugu weyn ee maamulka gobolka hiiraan dhaqaalaha uu kasoo galo. arrintan ayaa salka ku haysa xilka qaadistii uu madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdi waara ku sameeyey guddoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar. guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa dhankiisa ku sugan magaalada beledweyne wuxuuna ku howlan yahay qaaqii xilka loogu wareejin lahaa islamarkaana uu u shaqo bilaabi lahaa. ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo meesha ay salka dhigan doonto xiisada ka aloogan gobolka hiiraan ee ku salaysan xilka qaadista guddoomiyihii hore ee gobolkaasi. dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaasha iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar aan hore loosii shaacin ku tegaya gobolka bari ee puntland. madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa oo waqti kooban ku hakaday degmada carmo ee gobolka bari halkaasi oo ay kula kulmeen mas-uuliyiinta degmada iyo odayaasha waxaa la filahayaa in madaxweynuhu uu la kulmi doono saraakiisha ciidamada kala duwan ee puntland ee ku sugan gobolkaasi bari. magaalada boosaaso waxaa muddooyinkii u dambeeyey ku sugnaa wasiirka amniga puntland cabdisamed maxamed gallan iyo taliyaha ciidamada booliska puntland genaraal muxidiin axmed muuse. booqashada madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa kusoo beegmaysaa iyada oo cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta ay soo faaruujiyeen deegaanadii ay difaaca kaga jireen ee gobolkaasi bari. arrintan ayaa waxaa la sheegayaa ku saabsan socodka madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi puntland in dib loo qaban hayo goobihii ay ciidamadaasi soo faaruujiyeen ee gacanta u gashay xarakada al-shabaab ee ka dhaqdhaqaaqda gobolka bari.
muranka badda ee Kenya iyo Soomaaliya oo sii xoogaysan kara maadaama xukunka maxkamadda uu soo dhawaaday xiisada diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay sii xoogaysato xilli hadda uu soo dhow yahay waqtigii ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda go'aan ka soo gaari lahayd muranka xadka badda ee u dhexeeya labada dal sida lagu xusay qormo lagu daabacay wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya warqad diblomaasiyadeed oo ay Kenya u dirtay Soomaaliya 21kii bishan May waxay ugu hanjabtay in ay awood adeegsan doonto haddii muwaadiniinta Soomaaliya ay sii wadaan ka hor imaanshaha iyo burburinta derbiga ay Kenya ka dhisayso xuduudda dhulka ee u dhaxaysa labada wadan si wadista tallaabo kasta oo looga hor imaado ama wax loogu dhimo derbiga xadka waxaa looga jawaabi doonaa si awoodi ku dheehan tahay ayaa lagu yidhi qormada warqadda oo ay saxiixday wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya lana sii marsiiyey howlgalka Kenya ee Soomaaliya kadibna la sii gaarsiiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 25kii isla bishii May warqadaas ayay Kenya ku xustay eedayn ay Soomaaliya u jeedisay in si aan kala joogsi lahayn loo carqaladeeyo hawsha dhismaha derbiga loona adeegsado haween iyo carruur waxyeello u geysta ciidanka ammaanka iyo kooxaha dhismaha ku howlan Kenya waxay qiyaasaysaa qiimaha ku kacaya waxyeellada ay geystaan muwaadiniinta Soomaalida ah iyada oo qorsheynaysa in ay dalbato magdhow ayaa lagu yidhi warqadaas oo ka koobnayd 2 bog uuna arkay wargeyska The Standard sidoo kale warqadda gudaheeda Kenya waxay Soomaaliya ku eedeysay in aysan dhankeeda ka xoojinin wanaagga ay Kenya u samaysay Soomaaliya wargeyska The Standard ayaa sheegay in ilawareedyo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya oo ka gaabsaday in magacooda la xuso ay u sheegeen in xukuumadda Muqdisho ay dulqaad u muujinayso cadaadisyo dheeraad ah oo dowladda Kenya ay samaynayso kuwaasoo ka dhan ah saraakiisheeda iyo dadkeeda ganacsatada ah xilli laga warsugayo go'aanka maxkamadda ICJ si wadista tallaabo kasta oo looga hor imaado ama wax loogu dhimo derbiga xadka waxaa looga jawaabi doonaa si ay awoodi ku dheehan tahay ayaa lagu yidhi qormada warqadda oo ay saxiixday wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya lana sii marsiiyey howlgalka Kenya ee Soomaaliya kadibna la sii gaarsiiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 25kii isla bishii May warqadaas ayay Kenya ku xustay eedayn ay Soomaaliya ugu jeedisay in ay si aan kala joogsi lahayn loo carqaladeeyo hawsha dhismaha derbiga loona adeegsado haween iyo carruur waxyeello u geysta ciidanka ammaanka iyo kooxaha dhismaha ku howlan Kenya waxay qiyaasaysaa qiimaha ku kacaya waxyeellada ay geystaan muwaadiniinta Soomaalida ah iyada oo qorsheynaysa in ay dalbato magdhow ayaa lagu yidhi warqadaas oo ka koobnayd 2 bog uuna arkay wargeyska The Standard sidoo kale warqadda gudaheeda Kenya waxay Soomaaliya ku eedeysay in aysan dalkeeda ka xoojinin wanaagga ay Kenya u samayso wargeyska The Standard ayaa sheegay in ilawareedyo ku dhow madaxtooyada Soomaaliya oo ka gaabsaday in la xuso ay u sheegeen in xukuumadda Muqdisho ay dulqaad ka muujinayso cadaadisyo dheeraad ah oo ay dowladda Kenya samaynayso kuwaasoo ka dhan ah saraakiisheeda iyo dadkeeda ganacsatada ah xilli laga warsugayo go'aanka maxkamadda ICJ hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawade ayaa isla wargeyskan u sheegay in xukuumaddiisu aysan diyaar u ahayn in ay sii xoojiso khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ma danaynayno in ay arrintu noqoto farfar ku fiiqe waxaan danaynaynaa in aan Kenya la yeelano xiriir wanaagsan ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka Soomaaliya wasiir Cawad ayaa ku qoslay su'aashii uu wargeysku weydiiyey ee ku saabsanayd wararka la isla dhexmaraya ee la xiriira in Kenya ay xulufo la samaysanayso maamul goboleedyada Soomaaliya gaar ahaan jamhuuriyadda iskad madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland waxuuna yidhaahday waa dowladda Soomaaliya waxa Kenya u ogolaaday in ay qunsuliyad ka samaysato Hargeysa isaga oo markaas ula jeeday in Hargeysa ay tahay magaalo ka tirsan dalweynaha Soomaaliya go'aanka maxkamadda cadaaladda ee ICJ ka soo saarayso dacwadda ku saabsan muranka badda ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ayaa la filayaa in uu soo baxo sanadka dambe haddii ay Kenya ku guuldareyso kiiskaas waxay waayi doontaa 100 kiiloomitir oo isku wareeg ah oo ka mid ah biyaha hodanka ku ah kheyraadka dabiiciga ah ee gaaska loo yaqaano
wararku waxay sheegayaan in dowladda Kenya ay aad ugu macallisan hayso sidii ay jawaab uga bixin lahayd haddii ay ku guuldaraysato go'aanka ka soo baxa maxkamadaasi. Dowladda Kenya ayaa aad ugu mashquulsan jawaabta ay ka bixin hayso go'aanka ay maxkamaddu ka soo saarto goobta lagu muransan yahay ee ay labada wadan isku haystaan. Dowladda Kenya ayaa aad loogu badinhayaa in aysan ku qanacsanayn in kiiskan ay maxkamaddu soo go'aamiso iyada oo mar walba ku celcelinaysa in wadahadal lagu dhameeyo. Dhanka Soomaaliya ayaan iyadu u jixin wax kasta oo ka soo yeedha dhanka Kenya. Hanjabaado badan iyo qoraallo badan iyo tallaabooyin fara badan oo Kenya ay qaaday, dowladda Soomaaliya kama aysan jawaabin, waxayna dadka arrimaha u dhuntuleela ay sheegayaan dowladda Soomaaliya in ay ku qanacsan tahay in ay iyadu heli doonto badda ayna leedahay. Sidaas darteed ma rabto dowladda Soomaaliya in ay isku mashquuliso ama ay ku gargoortanto dhul iyadu ay leedahay, iyada oo dowladda Kenya tallaabooyin dhowr ah ay qaaday kuwaasi oo dhammaanba ay ku xumaynayso dowladda Soomaaliya iyada oo burisay dhammaanba heshiisyadii labada dal ay kala saxiixdeen. Ayaa haddana dowladda Soomaaliya la sheegayaa ilaa oo maxkamadda go'aan soo saarto in aysan wax jawaaba bixinaynin. Wararka aan ka helayno dalka Itoobiya ayaa sheegaya in dowladda dalkaasi Itoobiya ay soo saartay qaabka ay u maamulayso kheyraadka dabiiciga ah ee uu dalkaasi leeyahay. Golaha Federaalka Itoobiya ayaa ansixiyay xeer qabyo ah oo horyaalay golaha, waxaanu yahay xeerka golahu ansixiyay xeerka qaybsiga kheyraadka dabiiciga ah ee dalka Itoobiya, waxaana sidaa ku warramay telefishinka dalkaasi Itoobiya ee ETV. Xeerka golahu ansixiyay wuxuu dhigayaa in gobolkii laga helo wax kheyraad dabiici ah uu leeyahay 50%, dowladda federaalkuna ay leedahay 25%, iyada oo weliba deegaankaasi 25% ay dowladda federaalku heshay wax ku leedahay inta soo hadhay oo ah 25%, si gaarana loogu qoondeeyey deegaanada dalka oo dhan. Haddaba sida xeerkan la ansixiyay uu wax u qoondeeyey waxay ka dhigan tahay in dowladda deegaanka Soomaalida dalkaasi Itoobiya oo dhowaan laga helay gaaska dabiiciga ah iyo shidaalba uu qayb libaax ka helayo qaybsiga kheyraadka laga helay gobolka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya. Marka la sii balballaariyo ee lagu saleeyo xeerka la ansixiyay, waxaa gobolka Soomaalidu ka helaya shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee laga helay deegaanadiisa in ka badan kala badh dakhliga ka soo xaroon doona shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee laga helay dhulka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya. Taas macnaheedu waxa weeye in gobolka Soomaalida dalka Itoobiya xaq u yeelanayo in uu helo 50% u gaar ah iyo weliba saami kale oo uu ka helayo badhka kale ee dowladda federaalka ah iyo gobollada kale ee dalku ay qaybsanayaan. Xildhibaanada golaha federaalka ugu jira dowladda deegaanka Soomaalida dalkaasi Itoobiya iyo mas'uuliyiinteeda kaleba waxay ku doodeen in xeerkan la ansixiyay uu dhaqan galo oo lagu saleeyo miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2012 tirsiga Itoobiya. Hase yeeshee waxaa la isku raacay in xeerkan la ansixiyay si buuxda loo dhaqangelinayo sanadka ka dambeeya ee 2013 ee tirsiga dalkaasi Itoobiya. Wasaaradda Macdanta iyo Shidaalka ee dalka Itoobiya ayaa dhowaan shaacisay in shirkad ka shaqeysa wax soo saarka tamarta oo laga leeyahay Ingiriiska oo la yiraahdo New Age African Global Energy Limited ay deegaanka Soomaalida dalkaasi Itoobiya ka heshay gaaska dabiiciga ah 1.6 trilyan cubic feet. Waxaana wasiiru dowlaha macdanta iyo shidaalka Itoobiya Gangi Tulama oo waraysi siiyay wargeyska dalkaasi ka soo baxay yidhi, hadda waxaan ka shaqaynaynaa sidii gaaskaas dalku uga faa'iideysan lahaa iyo siyaabaha ugu habboon ee lagu suuqgeyn karo. Go'aanka ah xukuumadda federaalka ah ee Itoobiya ku gaadhay in shidaalka laga soo saaro deegaanka Soomaalida ayaa waaga ahaa intii aan xeerka cusub ee haatan la ansixiyay soo bixin, waxaana dhaliilay ururka ONLF oo sheegay in marka hore ay mahuraan tahay in la xalliyo khilaafka ka jira arrimaha shidaalka iyo saamiga wax loo qaybsanayo. Afhayeenka ONLF Mudane Cadaani Hirmooge oo mar waraysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa yidhi iyada oo aan la xallinin is-afgaranwaaga muddada dheer soo taagnaa iyo arrinta siyaasiga ah ee dhex taalla Soomaalida Ogaadenya ku nool iyo Itoobiya in hantidoodii loo gacan dhaafo oo lagu quudiyo dad kale oo Itoobiyaan ah waa gacan dhaaf waanan diidanahay.
si kastaba ha ahaatee xeerkan cusub ee la ansixiyey ee qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee dalkaasi Itoobiya ayaa sida uu u qaybiyey khayraadku ka duwan yahay sidii markii hore dadku u haysteen oo ahayd in aan dowladda deegaanka Soomaalida dalkaasi Itoobiya wax buuran ka heli doonin khayraadka gobolka Soomaalida laga helay. Dadweynaha ku sugan deegaanka Soomaalida ee dalkaasi Itoobiya ayaa inta ugu badan aan aaminsanayn in khayraadka ay Itoobiya ka soo saarto dhulkooda ay wax badan ku yeelanayaan, balse xeerkani ayaa fikirkii la qabay wax ka bedeli doonaa haddii ay suurto gasho oo sida ay dowladdu u sheegtay uu u meel maro. Dhanka kale, Maraykanka oo uga digay dalkaasi Turkiga in ay gantaalo ka iibsato dalka Ruushka, dowladda Turkiga ayaa waqti kama dambays ah loo qabtay in ay kala doorato inay iibsanayso diyaaradaha Maraykanka ama gantaalada lidka diyaaradaha oo ay Ruushka ka iibsanayso. Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in Turkiga ugu dambayn ay arrintan go'aan ka gaaraan dabayaaqada bisha Julaay. Xogayaha gaashaandhigga ee Maraykanka Patrick Shandi ayaa waqtigan kama dambaysta ah ku sheegay warqad uu u soo diray dhiggiisa Turkiga Hulusi Akar. Shanaan ayaa sheegay in Turkiga aysan wada heli karin diyaaradaha dagaalka ee F-35 iyo gantaalada difaaca hawada ee Ruushka ee iyagana loo yaqaano S-400. Maraykanka ayaa ku doodaya in gantaalada lidka diyaaradaha ee Ruushka aysan u dhigmin kuwa difaaca NATO, isla markaana ay arrintani tahay mid keeni karta khatar dhanka ammaanka ah. Dowladda Turkiga ayaa doonaysa in ay lahaato siyaasad difaaca oo ka madax bannaan NATO, isla markaana waxay Turkiga heshiis la galeen kaasi oo ay uga iibsanayaan 100 diyaaradood oo ah nooca F-35S. Master Shanaan oo ah wakiilka dowladda Maraykanku ay u soo idmatay arrintan ayaa warqadda uu u soo qoray dalka Turkiga ku sheegay in Maraykanka ay aad uga xun yihiin in ay maqlaan in Turkiga ay Ruushka u direen saraakiil si loogu soo tababaro isticmaalka gantaalada difaaca hawada ee loo yaqaano S-400. Turkiga ma heli doonaan diyaaradaha F-35 haddii ay keensadaan gantaalada nooca S-400, ayuu warqadiisa ku yidhi. Waxaad weli haysataan khiyaar aad ku bedeli kartaan qorshihiina gantaalada S-400, ayuu intaasi ku sii daray. hase yeeshee madaxweynaha Turkiga mudane Tayyip Rajab Erdogan ayaa talaadadii sheegay in waddankiisa ay ka go'an tahay in ay horay u sii wadaan qorshaha ay Ruushka uga soo iibsanayaan gantaalada lidka diyaaradaha ee loo yaqaano S-400. Gantaalada S-400 waa mid ka mid ah gantaalada ugu casirsan caalamka dhanka difaaca hawada. Waxa ay gantaalada S-400 gaadhayaan 400 oo kiiloomitir, waxaana si isdaba joog ah ay halkii mar u soo ridi karaan 80 bartilmaameed. Dalka Maraykanka oo inta faraha badan cadaadis ku haya wadamada muslimiinta ayaa waxa uu isku dayahayaa in caalamka oo dhan uu korka ka ilaashado tallaabo kasta oo la qaadaya isaga oo ku kantaroolaya dowladuhu waxyaabaha ay kala gadanayaan.